muddo laba maalmood ay indhaha caalamka oo dhan waxay u weecdeen dhanka iyo Maali kadib markii uu qarxay weerarkii ugu ballaarnaa uguna khasaaraha badnaa ee kooxo hubaysan ay ku qaadaan xarumaha ugu muhiimsan dawladda iyo militariga dalkaas. Weerarkan waxa uu ahaa mid si heer sare ah loo agaasimay laguna beegsaday goobo istaraatiijiyadeed oo dalka oo dhan ku fidsan. Waxa uu dhaliyay su'aalo waaweyn oo ku saabsan xasiloonida iyo awoodda maamul ee ka jirta hanashada amniga dalka Maali. Dhacdada loogu hadalhaynta badan yahay ee ka dhalatay qaraasahan ayaa ah dhimashada wasiirka gaashaandhigga ee dalka Maali Sadio Camara oo ahaa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee dalkaas. Ma uusan ahayn wasiir kaliya balse waa ninka labaad ee ugu awoodda badnaa Maali iyo maskaxdii ka dambeysay in Maali ay xiriir dhow la yeelato dalka Ruushka. Waxa uu dhintay oo uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar ismiidaamin oo lagu beegsaday hoygiisa oo ku yaala xero ciidan oo ku taala Kati magaaladan oo ah xudunta awoodda ciidanka dalkaas meel taariikh ahaan laga soo maleegay inqilaabyada Maali iyo halka uu degan yahay madaxweynaha dalku taas oo ka dhigaysa in weerarkii uu haabtay halbowlaha awoodda Bamako kadib markii generaalada militarigu ay talada la wareegeen 2021 marka la eego baaxadda weerarkan waxa uu ahaa mid ka duwan kuwii hore marka la isku eego isku dubaridka iyo guulaha degdega ee kooxahani ay gaareen. waxaanu eegaynaa maxaa ka socda Maali. أرقم كلاشوا وجوري السعة سرع لورد الشيء وكيا لما جالد النيروبي جارهان حافظ كلاشوا وجوري لا أديجي ده أساسية هذا بهدي عدنين يسوين المجالد النيروبي أتجوري كيف ستون جالس صحرير تلفون هذا الشاشة دكو قرن. سيدا لو حسي وربحنا هذا دنك أمانكا وهذا وحى أي وقت يسكون دوك قرحين مجالد كاتي جارهان أجار كجرون كديار ذا بماكو يجوبا كلدون أو كيا لو قوي جدالكا كواس أو جلافتي نرشب بقول لكم إذا ددوين ياسكربا. weerarada ayaa ahaa kuwa iska kaashadeen jamhad u dhaxeeya kooxda la Jamaacatu Nusra al-Islam oo xiriir dhow la kooxaha argagixiso iyo xoogga hubeysan ee dawaariqda ee doonaya gooni-goosadka gobolka Aswad ee dalkaasi. labada kooxood oo in mudahaba ay ka dhaxeeyeen loolan fikir iyo mid dhuleedba ayaa hadda u muuqda inay go'aansadeen mideynta awoodooda si ay meesha uga saaraan maamulka militariga ee ka taliya Bamako. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya kolonyo gawaari ah iyo mootooyin ay saaran yihiin boqolaal dagaalyahan oo dhex mushaaxaya wadooyinka Kate taasoo dadka arrimahan la socda kaga yaabisay sida fudud ee kooxahan ay u galeen mid ka mid ah magaalooyinka ugu ammaanka badan ee dalka Maali. isku dhacyada dhex maray ciidanka iyo kooxahan hubeysan ayaa socday muddo 2 maalmood inkastoo ay dawladdu sheegtay inay dib u soo celisay nidaamka iyo kala dambeynta haddana xaaladda magaalada Kate ayaa wali ah mid kacsan oo laga dareemayo daryanka rasaasta iyo dhaqaaqa military. dhanka kale waqooyiga dalka Maali ayaa waxa ku yimid isbedel weyn kadib markii xooga gooni-goosadka ee dawaariqa ay ku dhawaaqeen inay si buuxda ula wareegeen magaalada Kidal oo ahayd aag muhiim ah oo ay baadigoob ugu jireen gacan ku hayntiisa. magaaladani waxa astaan ay u tahay kooxdan dawaariqda waxayna gashay gacanta dawladda bishii November sanadkii 2023 markaas oo militariga Maali oo garabsanaya kooxaha loo yaqaan Wagner Group ee militarigu ay ka saareen xooga kooxdani waxay baahiyeen muuqaalo muujinaya ciidanka dawladda iyo kuwa Ruushka oo ka baxay xiriyaha ciidanka ee magaalada. guushani kooxaha gooni-goosadka ah ayaa wadatay cawaaqib militari iyo siyaasadeed oo isku dhafan Canada maamulka Bamako ee militarigu ay caynaanka u hayaan. maamulka uu hogaamiyo General Azima God ayaa wajahaya caqabado waaweyn oo gudaha iyo dibaddaba ka haysta tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii ugu dambeeyay 2021 Maali waxa ay go'aansatay inay xiriirka u jarto dalalka reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska iyadoo dooratay inay saaxiib dhow ka dhigato Ruushka si ay u hesho kaalmo dhinaca ammaanka. inkastoo kooxda Wagner ee Ruushku ay qayb ka qaateen howlgallo badan oo dalka ka dhacay haddana weerarada joogtada ah ee ka dhanka ciidanka iyo gerida madaxda sare ee dalka ayaa muujinaysa in garab istaagga Ruushku uusan joojin kacdoonka wajiyada badan ee sii xoogaysanaya gudaha Maali. geerida Sadio Camara hindisihii xiriirka Ruushka ayaana nugleynaysa xiriirka military ee Maali ay la lahayd dhinaca Ruushka iyo kooxaha calooshaqiistayaasha ee Wagner Group taasoo waqti xaadirkan ciidan aan u ahayn war lagu farxi karo. xaaladda cusub ee Maali ay la daala dhacayso ayaa waxaa ka dhalatay burburka heshiiska nabadda ee 2015 kaasoo loogu talagalay in lagu xalliyo tabashooyinka dadka degan waqooyiga Maali ee dawaariiqda. burburka heshiiskaas wuxuu fursad u siiyay kooxaha hubeysan inay dib isu habeeyaan iyada oo garabka nabadoonka ah markay arkeen in dawladdu heshiiska ay cagta hoosteeda gelisay ayaguna qoriga dheegta saarteen. waxayna hadda u muuqdaan inay soo ekeeyeen weerarkoodii kama dambaysta ahaa ee kaga takhalusi lahaayeen maamulka military ee Bamako. waxaa taas barbar socday dharbaaxooyin isdaba jooga oo ka imaanaya kooxaha xagjirka ee la yiraahdo Nusrat al-Islam oo ay ku beegsadeen in badan oo ka mid ah kolonyada gargaarka saadka iyo waliba shidaalka
iyo goobaha dahabka laga soo saaray si ay dowladda uga jiraan ilaha dhaqaalaha taas oo waayahan dambe culays badan saartay dhaqaalaha dowladda sicir bararka badeecadahana sare u qaaday. dowladda Maali ayaa qaaday tallaabooyin ay ku qaadaysay inay ku dabargoyso xaaladan faraha ka sii baxaysana meesha kaga saarto. bandow ayaa lagu soo rogay habeenkii dalka oo dhan waxaa la xiray hawada dalka gaar ahaan garoomada diyaaradaha oo ka mid yahay kan caasimadda ee Bamako. afayeenka dowladda ayaa isku dayay inuu qariyo khasaaraha baaxadda waxaana uu sheegay in dowladdu ay gacanta ku hayso xaaladda balse geerida wasiirka difaaca iyo qabshada Kadel waxay u muuqdaan kuwo beeninaya hadallada dowladda. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Maali ayaa farta ku fiiqay dalalka dariska iyo quwada shay wuxuuna ku eedeeyay inay taageerayaan kooxo argagixiso si ay u daciifiyaan nidaamka militariga ee dalka Maali. eedahan oo wali loo hayn cadeymo muuqata waxa ay qayb ka yihiin dagaalka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Maali iyo dalalka ku boobay ururka ECOWAS ee Faransiisku ay gadaal ka riixayaan. arrintani waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa wajiga guud ee nabadgelyada gobolka Saaxil kaas oo muddo sanadaha la daala dhacaya weerarada kooxaha hubeysan iyo xukunka ay askartu foolaad u yihiin. qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii lagu qaaday Kati iyagoo ku tilmaamay fal argagixiso oo lagu beegsaday nidaamka dowladnimada Maali waxayna sheegeen in si degdeg ah loo garab istaagayo xukunka militariga. safaaradaha shisheeye ee ku yaala Bamako ayaa soo saaray digniino degdeg ah oo ay u dirayaan muwaadiniintooda waxayna ku amreen inay guryaha ku nagaadaan kana fogaadaan goobaha dadweynaha iyo xarumaha dowladda. ciidanka Maali ee inqilaabku caado u yahay ayaa isha lagu hayaa iyadoo oo booska lagu baneeyay Saadiya Camaar ay keeni karto in mar kale inqilaab uu dhaco taas oo wax looga bedelayo hoggaanka taliska ciidan ee dalka Maali. hogaamiyaasha militariga ee talada la wareegay 2022 waxay isku dayayaan sida ay xaaladda caadi uga dhigi lahaayeen. Maali ayaa maraysa marxalad taariikhi oo wax ka bedelaysa habsami socodka taariikhda siyaasadeed iyo midda ciidan ee dalkaas. weerarka Kati iyo qabsashada Kadel waa laba calaamadood oo muujinaya in istaraatiijiyadda militariga hadda jirta ay u baahan tahay dib u eegis gun iyo baara. ciidanka militariguna waxay sheegeen in qaadayaan tallaabooyin hubanti ah haddii maamulka Azimi God uusan awoodin inay wada hadal dhab la furaan kooxaha dagaalamaya waxa muuqata in garab militari oo ay helaan uu aad u adag yahay. Faransiiska iyo Ruushka ayaa u muuqda halkan inay si weyn ugu dagaalamayaan. Emmanuel Macron ka Faransiisku waxa uu doonayaa inuu dib u soo ceshado gacan ku hayntii Maali oo muhiim u ahayd iyo galbeedka Afrika kadib markii laga soo saaray dalal ay ka mid yihiin Burkina Faso iyo lankiisa ugu xoogana waxa hadda isugu geenaya sida uu xaqiijin lahaa damaca kama dambaysta ee Maali ay ugu doonayaan inay kula wareegaan. dagaaladii ugu dambeeyay iyo loolanka wali ka socda waxay kala muujinayaan in diyaaradaha militariga ee Ruushku ay qayb ka ciyaarayaan duulaanka ay doonayaan inay awoodayaan dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo dalalka galbeedka Afrika. waxaana muuqata in generaalada la wareegay talada Maali 2022 ay hadda wajahayaan daraare aan u wanaagsaneyn mustaqbalkooda sabab la xiriirta xaaladda ka kanaanta ee militarigu ay caynanka u hayaan ee halkan ka jirta. kooxaha hubeysan ee argagixiso iyo kooxda loo yaqaan dawaarada waxa ay dadaalkooda oo isugu geenayaan sida ay meel mar uga dhigi lahaayeen la wareegida talada kama dambaysta. labadii maalmood ee la soo dhaafayna uma ahayn waasan marka laga hadlayo isbedelada waaweyn ee gudaha Maali ka socda. kooxaha hubeysani waxay doonayaan inay xaqiijiyaan hadafkooda in talada ay la wareegaan halka dhinaca kalena ay kooxda militarigu u hogaamiya ayna qool dareynayso inay hesho gacanta sare iyo liminta kama dambaysta. laakiin Emmanuel Macron iyo Putin halkan waa isku baacsanayaan mid kastaana tiisa inuu xaqiijiyo ayoolkooda dhan isugu geenaya. kooxaha argagixiso waxay 6 bilood ugu dambeysay Bamako caasimadda dalkaas ku soo rogeen cunaqabatayn ay ka jareen wax kasta oo magaaladan gali lahaa laakiin taasi dowladda kama dhigin in isku dhibto kooxaha argagixiso ee waa ay ka sii dagaalamaysa. Burkina Faso, Maali iyo Niger ayaa 3 wadan oo darisa ayna ka dhaceen afgambiyo waaweyn oo generaallo xukunka ay la wareegeen iyadoo waliba sidoo kale xubno darajo hooseeyana ay foolaad u sii noqdeen kuwaas oo xaqiijinaya in dalalkan ay u baahan yihiin inay isku tashadaan lana soo afjaro saameyntii ay halkan ku lahaayeen. Faransiiska waxay u wareegeen dhinaca Ruushka taas oo reer galbeedku ay si weyn uga caroodeen. ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaara Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh